Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkan aan kusoo qaadanayno nooca shanaad ee Shallow Foundation oo loo yaqaano Raft or Mat Foundation. Waa maxay marka Raft Foundation ama Mat Foundation? Raft Foundation marka waxaa lagu leeyahay waa large single continuous reinforced concrete slab, okay? Intaas oo dhan waxaa lagala jeedaa waa hal slab oo weyn oo xiriira oo ka samaysan reinforced concrete, yacni shub birtiisa wato, okay? inta badan caadiyanna waxaa waaye shapekiisa marka la fiiriyo ama square noqonaa ama wuxuu noqonaa rectangle, okay? Circular noqon karaa, irregular noqon karaa xataa shape. Hadda tusaale ahaan kan oo kale u fiirso, hadda dhulka qofkan uu leeyahay waa qaabkaas oo kale u fiirso. Sidaan hadda markuu yahay sidaasuu dhinacaas u yahay waa kaas sida u jeedid. Marka hadda shapekan oo kale hadda square-na maaha, rectangle-na maaha, okay? So marka maxaa lagu dhahaa waa slab weyn oo isla socdo oo shub iyo birtiisa ka samaysan oo inta badan noqon karo sida caadiga ah square iyo rectangle u badan yahay shape ahaan, okay? Slabkaas marka wuxuu ku fidsan yahay marka over a large area weyn oo carradaada ama dhulkaada kamid ayuu ku fidsan yahay, wuxuuna marka celiyaa culayska dhismaha, okay? ama structure-ka la soo saara culayskiisa ayuu hayaa, wuu support gareynaa ama wuu celinaa. Culayskaas marka wuxuu usii gudbinaa marka carrada ayuu usii gudbinaa. Inaan isla fahnay ayaan rajeynayaa definition-kaas ama qeexitaankaas. Waxaa la tixgeliyaa ama uu kamid yahay noocyada shallow foundation-ka sida aan haddaba la socno, okay? wuxuuna ku fiican yahay marka la controlayo waxa la dhahayo differential settlement oo degitaanka, okay? carrada way degtaa, okay? marka culays badan la saaro carrada waxyaalaha looga hortagi kara marka waxyaalahaas oo kale waxay tahay in la isticmaalo raft foundation, okay? raft foundation marka si guud waxaa loo isticmaalaa structure-ada noocan ah, okay? residential iyo commercial building, okay? waxaa waye residential waxaa waye guryaha deegaanka ah iyo dhismayaasha loogu talagalay ganacsiga, kuwaasoo ciidoodu ay tahay ciidda ay laga dul dhisi doono ayaa waxay tahay mid poor ah, awoodeeda hooseysa, macna ciiddaa liidato, okay? meelahaas oo kale marka storage tanks marka maxaa waaye waa tanks, waa meelaha wax lagu keediyo waaye, structure wax lagu keediyo ama biyaha lagu keediyo ama gas ha lagu any liquid wixii la rabo ha lagu keediyo. Adiga meel tanks weyn oo wax lagu keedinayo oo kayd ahba haddii mar la sameynayo foundation-ka ay u baahanayso waxaa ku fiican inuu raft noqdo. Silos ayagana sidoo kale waxaa la isticmaalaa meelaha warshadaha ah, hadda shubka oo kale marka la sameynayo oo kale meelaha la isugu daro haanta dheer oo yacni silos aa la yidhaha. Chimneys-ka waxaa la lahaa meelaha qaaca badan ay ka baxaan oo kale. Structure waxaa loo sameeyaa shub camal ah oo dheer oo hadhow qaaci halkaas ay kasii deynaa. Marka warshadaha ayaguna sidoo kale isticmaalo. Waxaa kaloo loo isticmaalaa foundation-nada for heavy industrial equipment, okay? qalabyada warshadaha oo kale markii la rabo yacni ama structure warshad oo kale markii la rabo in la dhiso yacni waxaa dareemaya in qalabyo waaweyn culus ay isticmaali doonaan. Marka foundation-nada structure-daas loo sameynayana waxaa ku habboon raft foundation, okay? marka qodobkan kale maxaa waaye qodobkan kale waxay tahay marka qofka engineer-ka uu go'aaminayo ama uu go'aansanayo nooc foundation-kee ayaan ugu fiican macnaha oo qiimo ahaan ugu fiican. Waxaa fiican saddex shay inuu iska fiiriyo. Super structure load. Super structure marka waxaa la yiraahdaa structure-kaada gebi ahaan qaybna waa aas qaybna waa inta kore. Inta aas-aaska wayba qarsoontahay oo lama arko ciidda ka hooseeda. Inta ciidda ka sarreeya marka waxaa la yiraahdaa super structure, okay? ama dhulka ka sarreysa. Sidoo kale wuxuu iska qiimeynaa subsurface condition, yacni surface waa oogada sare oo dhulka, sax? Subsurface marka wuxuu kasii hooseedaa, okay? carrada kasii hooseedo marka la qodo loo tagayo waa carradaasna xaaladda ay ku sugan tahay inaad ogaato waa, okay? sidoo kale waxaa iska ilaalinaysaa desired tolerable settlement, okay? settlement-tigana inaad iska qiimeyso waa geotechnical report-kuna asagana inta badan ku qoran yahay, okay? noocyada marka raft foundation uu leeyahay way badan yihiin, okay? marka kuwa ugu muhiimsan ayaan isla arkaynaa haddeertaan. kan koowaad waxaa la yidhahdaa solid slab raft foundation. noocan marka maxaa lagu dhahaa kolomyada iyo derbiyada ayaa waxay spacekoodu wuxuu yahay mid isla eg. Spaceka isku jiraan column iyo column spaceka isku jiraan iyo derbi iyo derbi spaceka isku jiraan ayaa equal ah macnaha. Somehow waa isku wada dhow yihiin cabiradooda, okay? sidoo kale load distribution is also equal lagu dhahaa, okay? culeysyada oo kolomyadaas ay qaadi doonaanna waa equal, okay? ama la soo saari doono, okay? culeysyadaas marka hadhow foundation-ka ay u gudbin doonaan. marka culeysyadaasna iyagana waa equal iska ilaali marka. wuxuu ku dhahay maadaama loo design gareeyay yacni slabka noocaas oo kale ah uniform thickness mid yeelanayo maadaama uu yahay mid loo design gareeyay, wuxuu ku dhahay raftiga noocaas oo kale maxaa u naqaanaa solid slab. marka isagana noocyo kala duwan uu leeyahay, waa sii bari kartaa mid ma usii sharxi karno. waa kana afartan nooc oo kale ayuu sii leeyahay: flat raft mat foundation, wide toe raft iyo blanket raft foundation iyo slip plane rafts, okay? afartaas nooc oo kale uu sii leeyahay, okay? nooca labaad waxaa la yidhahdaa slab beam raft foundation. nooca marka kii hore cagsigiisa waaye oo kan maxaa waaye loadka oo kolomyadaada ayaa waxay yihiin unequal, okay?
okay يعني loadka culayskaada culays isla eg lama soo saari doono okay foundationkaada kolomyada culays u keenaya sax kolomyadaas marka culaysyo isla eg oo isku wada mid ma usoo wada gudbin doonaan okay culaysyada kala duwan wuxuu ku dhahay marka foundationkana wuxuu u nugul yahay markaas inuu ku dhaco waxa la lahaa distortion waxa la lahaa wax aan nidaamsanayn yani oo ma aragtay culaysyo kala duwan u kala imaanaya hadhow marka shapekiisa iyo qaabka uu isku bedelayo wax nidaamsan ma aha okay wuxuu ku dhahay beamiska ku jirana slabka noocana beamiska ku jirana sababtoo ah slab beam lagu yiri beamiska ku jirana waxay u shaqeynayaan as stiffener okay stiffener waxa la wax ka kanaanta ka qayb qaadanaya yani stiff waa shayga marka lagu dhaho waa shay iska caabin kara deformation waxa la ama isbedel inuu wax yar iska bedelo shapekiisa dhirirkiisa muuqaalkiisa inuu wax iska bedelo dhan soo marka beamka wuxuu ka qayb qaadanaa stiffnesska foundationkaada uu ka qayb qaadanaa raftiga marka maxaa lagu dhahay reinforced with 2 layers of mesh okay marka wuxuu ka wadaa laba lakab uu leeyahay yani bottom barisna wuu leeyahay oo hadda intuu kugu sheego one at bottom okay mesh marka lagu dhaho waa biro bottom iyo top looga baahan doonaa yani hoosna bira laga dhigi doonaa korna biro oo ay ka yeelan doonaa marka saasaa mesh lahaa okay biraha kalena topku ka yeelan doonaa okay beamiskana marka muxuu ku dhahay waxay siinayaan additional stiffness haddaan soo sheegnay waxay kaloo ka ilaalinayaan against distortion waxa waaye in shaygii isbedel yani ma aragtay qalooc iyo ma aragtay maxaa la lahay shapeki inuu kala duwanaado oo dhinacna ka fiicnaa dhinacna ka waxaysmo waxyaalahaasoo dhan ayuu diidaa nooca hadda slab beamka la yiraahdo waa noocan okay waka beamsa ku jira okay slabkina waa kanaha okay kan waa beam kanna waa slab sida isla faano columnkina waa kanaha soo marka noocaasna uu jira kii hore sawiriis waxaan usoo qaadan waxa waaye isaga afar nooc sii kala noqonayo soo marka inaan sii barta ayaan kugula talina nooca saddexaad waxaa la yidhahdaa pilot raft foundation noocan marka iska fiiri pilot waa taqaanaa waa nooc foundation ka mid ah iyo raft waa la isku keena marka intaas ka fahan wuxuu ku dhaha markii culeysyada structure-kaada aad u xoog badan yihiin yani culaysyo ziyadaha meesha yimid okay awoodda carrada marka ay isaga celinayso loadka lasoo saarana wuxuu ku dhahay waa very low yani carradan awood ay wax isaga celinayso ama culeysyada lasoo saaray ay ku celin karto ayaa aad u hooseedo okay water table-kana maxaa lagu dhaha isagana waa very high okay water table waxaa la lahaa carrada sideedaba mar kasta waa shay three phase ah yani carrada waxay ka kooban tahay wax solid particles ah water iyo wax la lahaa air okay so marka carrada waxaa midna waxa la yiraahdaa saturated midna waxa la unsaturated marka saturated maqasho waa carra biyo ka buuxaan waa okay biyaha ka buuxa so marka carrana waxa la unsaturated midda kore marka oo water table-ka marka kala qaybinayo water table wixii ka hooseeyo carradaas biyo aad uga buuxa waa biyo dhex socdo okay laakiin wixii ka koreeyo waa caadi weerooyin unsaturated la yiraahdo so marka meeshii water table-na waa jira oo u fiirso structure-da intooda badan way sahlan tahay in water table-ka korkiisa laga dhiso yani hadda structure-da la dhisayo dhan aa aragto oo shallow foundation-ka ah water table ma gaarin inta badan laakiin markii la yiraahdo water table hoostiisa waxa laga dhisaa caqabado badan aa imaanayo okay so marka wuxuu ku dhahay foundation-iska marka wuxuu ku dhahay waa la isticmaalaa marka intaan markii carradaada awooddeeda ay yar tahay water table-kii uu aad u dheer yahay okay sidoo kalena culeyska uu kugu badan yahay waxaa u baahanaya pile raft foundation aa isticmaasho okay marka wuxuu ku dhahay kharash badana macnaha maadaama kharash badan ay ku baxayso ku dhahay inta badan markii residentialka ama guryaha deegaanka looma isticmaalo wuxuu ku dhaha marka raft foundation-kana waxay tirtiraysaa gabi ahaanba baahida loo qabo in yani la design gareeyo very heavy raft foundation yani haddaad dhihi lahaanta pile ma adeegsanayno raft foundation oo aad u culus oo ma aragtay thickness weyn leh oo beams iyo ma aragtay aad loo adkeeyey aa loo baahanaa pile foundation marka meesha wuxuu ka saaraa in la isticmaalo very heavy raft foundation okay ama in la isticmaalo conservative pile foundation ama pile foundation-kii keligiisa ahaay aadka loo isagana ma aragtay u baahan shaqo badan u baahan isagana in la isticmaalo oo dhirfi aad u dheerna lala isticmaalo u baahnaay ayuu meesha ka saaraa soo marka wixii dhan waa la soo gaabiyey kuwa fududa waxaa pile-kaydina waa isticmaale oo tirirka mude raftigana waa kan marka sawir aan isla aragna marka waa kan aha pile kan maxaa waaye waa raft slabki waaye kanna maxaa waa pileski waa okay sida u jeedid pileskana hoos u mudan nooca afraad waxaa la yiraahdaa marka cellular raft foundation muxuu yahay marka wuxuu ka samaysan yahay made up of two way foundation beams oo ay la jiraan solid slab on the ground below and suspended slab on top yani sawiraan ku tusaa waa kanaha meeshaan hadda waxa ku jira waa beams waa okay marka muxuu ku dhahay waxaa lala isticmaalaa laba slab midna dhulku yaala oo slab on the ground waaye midna suspended waaye okay so marka labadaas slab dhexdoodana beamska ay ku jiraan two way-ga ah marka wuxuu ku dhahay marka the upper and the lower slab are joined by intermediate beams okay beams isku xiraayo okay slabka sare iyo slabka hoose waxa isku haayo intermediate beams okay marka wuxuu u bedelaa oo ku dhaha marka hadhow ama uu ekaysiinaa in uu qaato qaabka I beam okay haadiga marka waxaa loo isticmaalaa oo ku dhahay meelaha ay ka jirto heavy mining activities yani meelaha macaadinta laga qodo oo kale oo carraduna ay yani awoodda carraduna ay yar tahay oo kale meelahaas oo kale
foundation ka noocan oo kale ayaa loo isticmaalaa. Foundation ka marka wuxuu ku yiri waa inuu celin karaa lagu dhahaa massive bending, yacni bending waa shaygii in qalloocin lagu sameeyo ama la qalloociyo. Marka bendingkaas inuu iska caabin karaa, okay. waxa waayena wuxuu ku dhahay waa option la doorbido xaaladaha qaarkood, option fiican waa, okay. marka sidoo kale waxaa la isticmaalaa oo ku yiri markii removing overburns waxaa la lahaa waxyaalaha culculus oo kale saaridooda marka ay ka dhalanayso in bearing capacity ay ziyaado, okay. sidoo kalena waxaa loo isticmaalaa in uu controlo soil uplift pressure, yacni waxa waaye waa awoodda kor u soo qaadaysa, okay, carrada awoodaha isku dayaya markaas in structure-kii carrada dul saarnaay inuu kor u soo qaado kale, okay. nooca shanaad ugu dambeeyna waxaa la yiraahdaa balancing or floating raft foundation. noocan marka waxaa loo isticmaalaa meelaha soil bearing capacity-ga uu aad u hooseeyo, okay. soil settlement-gana must be kept within acceptable range. wuxuu ku dhahay settlement-ga ama degitaanka ciidana waxaa la rabaa inuu ilaaliyo acceptable range, yacni waxa waaye xaddi yacni la aqbali karo. wuxuu ku dhahay marka floating foundation-ka qaabku u shaqeeyo marka principle-ka xeerku uu ku shaqeeyo marka maxay tahay waa total weight of the soil and water removed, okay. biyihii iyo carradii la soo saaray marka la qoday carra la soo saaray Soomaa iyo biyaheedii, okay. marka waxaa la rabaa carradaas iyo biyahaas weight-kooda guud waxaa la rabaa, okay, inuu la ekaado ayaa la rabaa weight of the proposed structure-ka meeshaan la raba in laga dhiso ayaa la rabaa inuu la ekaado labadaas weight inay isla ekaadaan. marka principleskaas ayuu ku shaqeeyaa. markaan isla fiirino marka goormee la isticmaala marka when to use raft foundation, okay. xaaladahan oo dhan waa la isticmaalaa raft foundation. qodobka koowaad marka wuxuuna leeyahay waa soil has low bearing capacity. wuxuu ku dhahay ciidda aan rabno in structure-keena aan dul saarno ama culeysyo aan rabno inaan usoo isticmaalno ayaa waxay tahay mid awooddeedu ay yar tahay, awood qaadideeda, yacni carrada awoodda ay wax isaga caabinayso ama culeyska la soo saaray ay ku celinayso ama structure la soo saaray ay ku celinaysa ayaa aad u yar. qodobka labaad marka wuxuu yahay load of the structure has to be distributed of a large area. culayska structure-kani uu leeyahay ayaa waxaa la rabaa in lagu baahiyo over a large area weyn la rabaa, yacni culayskii waxaa la rabaa in lagu baahiyo dhulkaan oo dhan, okay. markaas oo kale raftiga fiican sababtoo ah raftiga waa wax baahinayo. qodobka saddexaad marka wuxuu ku leeyahay individual or any other foundation area would approximately cover 50%. yacni wuxuu ka wadaa individual wuxuu ka wadaa column footing-kii isolated-ka ahay, yacni magaca kale loo yaqaan wuxuu ahay individual column. footing-ka keligiis ahay oo halkii column footing-giisa loo sameey jiray footing-ka noocaas oo kale ah ama foundation-nada kale area-dooda haddii ay qabsanayda lagu yiri ama ay daboolayso wax ku dhow 50%, yacni total area fiiri dhulkaaga oo dhan area-diisa 50% ayaa waxaa ku fariisanayo individual footing ama isolated footing ayaa u baahanayo ama other foundation. noocyada kale foundation-ka ay waxay kaaga baahanayaan area 50% ka ah area-da guud. tusaale ahaan hadda tiraa 10 story building dhismo 10 biyaan ka kooban ayaan isolated u isticmaalaa, imagine area-da uu ka dalban doono. markaas oo kale maxaa ku qasbantahay inaad isticmaasho raft ama mat foundation, okay. qodobka afraad wuxuu ku leeyahay columns-ka ama walls-ka ayaa aad isugu dhow, okay. column-yada hoosta isaga jiro, derbiyada hoosta isaga jiro. marka haddaa tira individual footing isticmaalana muxuu ku dhahay would overlap, okay. oo isdhexgeli doonaan laa shaka waa taas. qodobka kale oo afraadna wuxuu ku leeyahay columns or walls are placed so closely, okay. yacni wuxuu ku yiri column-yadii iyo derbiyadii ayaa aad isugu dhow, sidaa daraadeed marka waxaa dhacaysa hadhow individual footing-iskii in ay sameeyaan overlap wax la inay isdhexgalaan column-yada hoos isaga jiro, bimacnaa hadhow footing-naduna hoos iska soo geli doonaan oo way isdhexgeli doonaan, derbiyadana waa sidoo kale. qodobka kale wuxuu ku leeyahay marka stress on soil needs to be reduced, yacni meeshaan culays la soo saaraa. culayska marka haddii area yar oo bar ah la saaro culays xoog badan iyo markii area weyn la saaro isku si ma aha. stresska markasta wuxuu yaraanaa markii area la weynayo, okay. so marka hadday rabto ciidda in stresskeeda la yareeyo waxaa ku qasbantahay shallow foundation isticmaasho markaas loo baahiyo culayskii oo dhan. qodobka kale marka wuxuu ku leeyahay there is a possibility of differential settlement, okay. yacni markaan joogno ku leeyahay individual footing ama isolated footing waxaa jirto possibility, yacni waxaa la rajaynaa ama la tamaninaa differential settlement inuu dhaco. degitaanka hadduu isla eg yahay wax dhiba ma laha, saameyn badan ma yeelanayo. laakiin markii dhinacna xaddi uu ka dego dhinaca kalena xaddi kale uu ka dego dhibaa ka imaan. differential settlement aad u khatar u yahay, collapse maahan wax kale ma sababayo, okay. qodobka kale asagana wuxuu ku leeyahay markii soil strata waxa waa lakabka ciidda uu yahay unpredictable, midaan la saadaali karin wax uu noqon doono ma taqaanid, okay. ama lama yaqaano waxa waaye cabsiya laga qabaa, shaki badanaa ka jiro, okay. lakabkaas conditionskiisa iyo wixiisa lama hubo. sidoo kale lakabka wuxuu ka kooban yahay pockets of compressible soil, okay. yacni meelo wuxuu leeyahay ciiddu ay didismayso, okay. dulduleelo carradu ay didismayso ayuu leeyahay. markaas oo kalena waxaa fiican shallow foundation la isticmaalo, okay. qodobka kalena wuxuu ku leeyahay basement waxaa la lahaa yacni haddii biyaanooyin dhulka hoostiisa la gelinayo ama dhulka hoostiisa in wax laga dhiso oo kale
يعني بيانو أما stories إن la geliyo dhulka hoostiisa dii la rabo waxaa fiican shallow foundationka in la isticmaalo qodobka ugu dambeeya marka wuxuu ku leeyahay any other type of footing cannot be used يعني noocyadii kale u fiirso kan waxaa la yidhahdaa waa last option يعني waxaan soo barana hadda originalka muuqaalo badan aan soo gelino oo foundationka ugu hadlayna noocyadaas foundationka oo idil last option kana ah intaas waa warka uu kuu sheegayo noocyada kale dhan haddaa isticmaali weysid waxaa ku qasbantahay inaad isticmaasho raft foundation saaxiibayaal waa mahadsantihiin halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa la sheer garay asxaabtaada kale ee u baahan